قرقو شرشر مدمد لفلف نعنع كعكع وحاصل صعبة تغني ونفع الله وين أنا كماله لبات شارون بين سكول فرينايو وحا نقنيسا أستان قفت قناوك سعسع وحا أنا إسلاي حيوان بسم الله الرحمن الرحيم المركل أي حسدني ويا نرتيي مالك كيدو يتوله سؤال بان دويدي سؤال شاس وحي حيد نينك مدعي هي نينك مدعي محل أورنجري في الصومالي نينك مدعي isagu dacwoonaya waxa la oran jiray nacfi jiid ninka madaacaliga ah ee laga dacwoonayna waxa la oran jiray lur reeb oo lurtiibu isaguna iska reebaya marka waa muduuciye madaacaligu saasay u kala haayeen nacfi jiid iyo lur reeb baa la oran jiray aan bilaaba casharkeena maanta waxaynu dhiganaynaa casharka la yiraahdo erey bixin oo aan isleeyahay wuxuu aad muhiim ugu yahay erayadan qalaad ay na soo galay waa ogtiino erayada qalaad saddex xabun bay nagu soo galeen qaarna waxay nagu soo galeen qaab diimeed bay nagu soo galeen erayada salaad soon sadaqo sako rukuuc sheekh umaamad koofiyad kitaab waxaas waxay nagu soo galeen maxay qaab diineed qaarna waxay nagu soo galeen qaab ganacsi oo waxa kamid ah telefoon shaar surwa waxaas kamid ah gaari kuwaasina saasay nagu soo qaarna waxay nagu yimaadeen qaab haduu eebaydankeeda leeyahay siyaasadeed oo maxaa kamid ah dawlad baarlamaan waxaas kamid marka maadaama aynaan lahayn akademigii afka aynaan intaynu wax samayna aynaan dunida u dhoofinin oo aynu noqonay saylad dee waxaad aragtaan erayada qalaad ee faraha badan ee afkeenii ka soo buuxsamay afka marka la doonayo in la tarmiyo laba habon buu dee loo tarmiyo labadaa hab mid waa koritaanka gudaha oo afka gudaha ayaa laga koriyaa oo laga tarmiyaa midna dibaddu ka tarmaa ma hadduu dibadda afku ka tarmo waa ka halista badan ee khasaaraha badan waa ka maanta inagu socda oo bal waxaa aragtaan afkeenii dee waxaa kaa noqday mushakal cayn noqday ee carabi ku jira ingiriisi ku jira talyaani ku jira faransi ku jira hindi ku jira nooc waliba ku jira shida waxaa arki doontaan maadaama China aynu ku xidhanay erey Chinese ayna soo gal sidaa daraadeed waxaynu doonaynaa afka talabaadii muhiimka ah waa in gudaha laga koriyo oo waxa weeyaan shaygu markuu fikir inoo yimaado ama farsamo labadaas shay weey fikir baa inoo yimi tusaale ahaan dimuqraadiyadu waa fikir ama farsamo inoo timi wax loo telefoon internet ayaa kamid ah qalin waa farsamooyin shaad waa wax la sameeyay labadaas markay inoo yimaadaan intaanay bulshadeena la falgelin aanay u gudbin waa intaynu qabanayna inuu magac Soomaaliya u bixi halka hooyooyinkeenii hore ayaa aad ugu fiicnaa kiniin madax xanuun ka loo adeegsan jiray waxa ku sawirnaan in say isku hayay max grip baa la oran jiray laakiin hooyooyinkaas way bedeleen waxay yiraahdeen fikir waa erey aad ugu haboon kiniinkii fikriga iibi bacaha ila qabo oo kale erey bixintaynu doonayna waa taas waxaynu rabnaa erey ku haboon inaynu maaragtay u adeegsano shayga inoo yimid fikir ama farsama haddaba erey bixinta gudeed ee muhiimka ahi waxaynu u baahanahay afar wada ayay martaa si kalaan idinku sheego afar naas baa ereyada laga maala soo xooluhu ma laha afar naas soo caana kaman maalno waxa jira afar naas oo ereyada laga marka loo baahdo ee fikir cusub ama farsamo cusub ay inoo timaado ka koobaad waxa la yiraahdaa jibaarid waa naaska aan isleeyahay waa ka ugu eyreysan oo waa maxay erey baa inoo yimi fikir baa inoo yimi ama farsamo inoo timi waxaynu u baahanahay waa af qalaad waxaynu u baahanahay inaynu af Soomaaliyeeno waxaynu sameynaynaa jibaarid waad garanaysaanoo erey inoo jiray ayuun baynu laba jeer isku dhufay hal erey oo aynu naqaanay ayuun baa laba jeer aynu isku dhufay waxa inoo soo baxaya erey cusub oo af fikir cusub sida tusaale ereygan waa taqaanay baleekada habba taqaan waa erey af Soomaaliga macno sugan ku dhaxay waxaynu beeranay bahal yaroo macaan laba jeer maynu isku dhufano waxaynu nidhi hab waa ereygii baynu jibaarnay erey aynu naqaanay marka laba jeer la isku dhufto waxa inoo soo baxaya erey cusub oo fikir iyo ama farsamo cusub durba taqaanay bal u fiirsan oo af Soomaaliga macno inoo leh waa mud weey laba jeer baynu isku dhufan macno kale inoo soo baxay deg baa taqaan oo ama dhaadhac markaynu leenahay markay magac tahayna waa degteeni marna waa dhaadhac oo waa fal amar laba jeer markaynu isku dhufan hadda u fiirso ereyga kale inoo soo baxay degdeg gurgu charcha mudmud lufluf nacnac kackac waxaas oo dhan sacba taqaanay waa neef xoolaha oo aynu aana ka maalno
laba jeerun baynu isku dhufanaynaayo waa waxa noqonaysaa astaan qof doqon oo kale sax waxa aan isleeyahay waa naaska ugu eyreysan ee ereyada laga maalo marka loo baahan sida aawadeed waxaynu leenahay haddii shay cusub oo kale tusaale ahaan uu inoo yimaado waar ereyga ka naaska ma adeegsanayo erey ma ka maaladaynu qalino kale u bixino oo laba erey oo jiray un ma isu geeyna haddaba labada erey mararka qaarkood waxay noqon karaan laba erey oo saa isku leh sida kuwan oo boqolaalka noocaad garanayso cun baa taqaanay cun waxa soo baxay waxaynu cun deg baa taqaanay waxaynu deg wax noocana ay tijiidanaya maxaynu u bixinaabaa dee timiyo de waxay noqoto dhegteenu laba jeer isku dhufano deetana saasoo ereygaasi noogu soo baxay mar baa taqaanay wax yaroo qurux badan inuu guryaha dhiganaa soo baxayo waa maxaynu bixinaayo mar baa la yidhi mar ereygiin baa laba jeer la isku dhuftay markaasuu noqon kara mar kale laba erey oo kala duwan ayaynu soo qaadan karnaayo bal u fiirso ereygan dow weeye soo erey macnaynoo le maaha waa wado ereyga kale ee halkan kale inoogu yaallaa isna waa gal oo waa erey isaguna macno gaara inoo le oo laba ereyoo mid kastaaba macno gaara inoo leeyahay ayaynu intaynu soo qaadnay baynu isu keennay dowgal baynu nidhi waxa inoo soo baxay ereygani marka hore waduu ahaa kanina gal buu ahaayo meel biyo fadhiistaan buu ahaa labadii erey baynu isu keennay erey cusub baynu isaga dhignay waxa inoo soo baxay erey cusub dowgal oo macnihiisu yahay oo kale salid duur baa taqaanay bal hadduu u fiirso duur baa waa maxay waa kayntii ama waa qorigii yaraa geedkii yaraa ee aloolka laga sameeyey ereygan kalena waa taqaanay xul oo isaguna waa erey macno sugan inoo leh oo waxa weeyaan waxay noqonaysaa ama waa dhexmarid ama waa marid weeyaan oo koox laga soo maray ereygii baynu isu labadii erey baynu isu keenay waxaynu ka samaysanay erey cusub ereygaa cusub wuxuu macno meel buu inoo buuxiyeyoo wuxuu noqday markaa bal u fiirso duur xul waa sarbeeb imika haddaba marka aynu doonayno inaynu erey bixinta samayno naaska laga maalo ereyada ee koobaad waxaa la yidhaahdaa jibaari waana ka ugu eyreysan waa laba erey oo ereygii inaynu laba jeer isku dhufanno si aynu erey cusub u abuurno ama laba erey oo kala duwan inta aynu soo qaadanno aynu isu geyno aynu erey cusub ka samaysano si uu inoogu buuxiyo kaalinta taasi waa midoo waynu abuuri karnaa tusaale ahaan telefoon baa aynu leenahay ayaynu doonaynaa inaynu dee magaca af soomaaliya u bixi waxaa inoo bannaan inaynu waddadaa marno waa kow waddo kale ayaa jirta oo dariiqa kale ee labaad